بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلهي با mahad iska leh saldanadu waxay hadda ku sugan tahay waayadan dambeed qaaradda Afrika gaar ahaan dalka Kenya magaalada caasimadda waa Nairobi waxaan rabaa anigoo Sultan Maxamed Sultan Yusuf kana mid ah ismada Puntland gaar ahaan gobolka Bari aan afayeenka beelaha Daarood inaan hambalyo iyo bogaadin ba u diro suldaanka cusub ee dhigayga ah ee lagu doortay magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland ana xarunta gobolka Bari Sultan Mursal Muuse Konte oo markii walaalkiis geeriyooday Allah u naxariistay Sultan Bashiir Muuse Konte bishii hore beesha Umar Ali Saleebaan Majeerteen ay ka go'aan ku gaareen inuu suldaankaas bedelo oo suldaankaas shaqadii uu sii wado maadaama walaalkiis geeriyooday sultaan waxaan ku leeyahay ku soo dhawow gogosha isimada gobolka Bari ku soo dhawow gogosha isimada Puntland ku soo dhawow gogosha isimada Soomaaliyeed ku soo dhawow gogosha isimada Majeerteen ku soo dhawow gogosha isimada Xijiijle ku soo dhawow gogosha isimada Awe ku soo dhawow gogosha isimada Saleemaan ku soo dhawow gogosha isimada Ibraahim Jibraahiim sultaan soo dhawow waan ku leeyahay waan ku faraxsanahay runtii xalana waataan ku soo hambaliyay oo ismaqalay in runtii ay ii tahay farxad in suldaanku maanta beeshiisu ay dooratay si heer saraaran looga soo qayb galay sultaan waxaan ku leeyahay hambaliyo beesha Umar Ali Saleebaan ee aanu nahay walaalaha waxaan iyagana leeyahay inay suldaanka la shaqeeyaan si uu xilkiisa iyo u guto waajibaadkiisa ayaan leeyahay waxaan dhacday runtii xeero Majeerteen ama xeero gobolka Bari saldano inay walaalkeed dhaxasho 4 jeer bay dhacday taariikhda Sultan Bashiir Muuse Konte markuu dhintay waxa dhaxlay oo saldanada loo dhiibay walaalkiis maantay Sultan Mursal Muuse Konte waxay dhacday oo kale Sultan Ciise Xasan Cumar oo suldaanka biciidyahan Saleebaan oo isagana walaalkiis loo dhiibay Sultan Maxamuud Xasan Cumar waxay kala oo dhacday boqor Maxamuud boqor Muuse boqorka beelaha Daarood oo walaalkiis uu bedelay boqor Cabdullaahi Muuse Kinkor waxay kala oo dhacday in uu loo doortay boqor Burhaan boqor Muuse oo isaguna uu bedelay walaalkiis boqor Cabdullaahi Kinkor waxaan ku soo gabagabeynayaa anigoo ka mid ah ismada Puntland taariikhda ku leh sultan soo dhawow mar labaad iyo mar saddexaadba waan ku hambalyeynaa hambaliyo beesha Ali Xijiijle Majeerteen iyo beesha Umar Ali Saleebaan walaalnimo iyo degaan iyo waxa ka dhaxaysa wada shaqayn aad iyo aad baan kugu hambalyeynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh